qarax sababay dhimasho iyo dhaawac ayaa ka dhacay goordhow magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. Qaraxana ayaa wuxuu si gaar ah kaga dhacay maqaaxi lagu magacaabay Ifiya Aqro, taasoo ku taala warta Cali Timacade ee degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo. Labada qarax ayaa lagu aasay maqaaxida mid ka mid ah, waxaana halkaasi ku geeriyooday dad shacab oo ka agdhawaa qoobta uu qaraxu ka dhacay. Markii qaraxaasi uu dhacay kadib ayaa waxaa qarax labaad uu ka dhacay isla maqaaxida gudaheeda, waxaana halkaasi ku geeriyooday isla markaana ku dhaawacmay dadkii shacabka u soo gurmaday dadkii ku dhaawacmay qaraxii hore. Maahan markii ugu horeysay oo qaraxyo noocan oo kale ka dhacaan degmada Beled Xaawe ee gobolka Gedo, waxaana qaraxyada noocan oo kale sheegta ururka Al-Shabaab. Ilaa xilliga ma jirto wax warar ka soo baxay laamaha amniga ee dowlad goboleedka Jubbaland iyo tan guulada federaalka Soomaaliya oo go'aadan qaraxan maantay la beegsaday dadka shacabka ee lagu aasay maqaaxida dhexdeeda. Waxaa sidoo kale xusid mudan in maalmihii ugu dambeeyay ciidamo fara badan lagu sii daabulayay magaalada Beled Xaawe ee gobolka Gedo sida ay u xaqiijiyeen ammaanka guud ee gobolka, isla markaana uga hortagaan weerarada qaraxyada ay ka geystaan ururka Al-Shabaab gobolkaasi. Caynul Caafiya Hospital waxa uu ka daweynayaa xanuunka baabasiirka. Ma dareemaysaa dhabar xanuun, caajis joogta ah, cuncun dhanka hoosa, saxarado kugu adag iyo hamiyari dhanka gogosha? Haddaba iskaga ciribtir xanuunka baabasiirka muddo ka yar 15 maalin adigoon wax qalliina lagugu samayn. Wixii faahfaahin kala xiriir telefoonada kala eberli halhal 37 37 83 ama eberli halhal 37 37 86 ama lambarka gaaban ee 3777.